tayo dental clinic oo kamid ah goobaha caafimaad oo dhakhaatiirta caafimaad ee daaweynta ilkaha ayaa waxay kamid ahayd carwo bandhigida caafimaad ee ka furantay magaalada Hargeysa waxaana ay carwadani tayo dental clinic ay ku soo bandhigtay adeeg hufan ay ku dheehan tahay tayo dental clinic ayaa carwo bandhigadani ku soo bandhigtay adeegyo cusub oo casri ah isla marhaantana lagu sameyn karo ilkahaga sida buuxinta kabista ilka xidhida iyo sidoo kale daaweynta cudurrada kala duwan ee ku dhashay ilkaha haddaba waa kan Dr. Ibrahim Cismaan oo ka mid ah dhakhaatiirta kala duwan ee ka howlgasha dhakhtarkani tayo dental clinic ee ku soo bandhigtay carwo bandhigadana caafimaad ee ka furantay magaalada Hargeysa waxaana inoo faahfaahinaya waxyaabaha kala duwan ee uu dhakhtarkani u qabto guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka ku dhagan Somaliland isagoo sharxay adeegyada cusub ee tayo dental clinic soo kordhisay isla mar ahaantaana ay kaga qayb qaadanayso carwo bandhigadani clinic oo waxa weeyaan adeegyadeedii caafimaad ay bulshada u qabanaysay ku soo bandhigaysa carwada caafimaad ee Somaliland marka waxaan soo bandhigaynaa kulay waxyaabihii bulshada aanu qaban jirnay si hore baan ugu adeegaynay oo aanu discount 50% aanu sameynayno imka wixii inta bisha ka hadhan hadii la yiraahdo intaas oo dhan socon doona ayaanu sameynaynaa marka horena waxa looga bartay adeeg hufan iyo tayo sare oo magacayaga sida ka muuqato tayo la baxnay moogtahay marka dadka qaarna waxa ku dadaalaan tirada dadka qaarna tayada ku dadaalaan anu hadii jeer Dr. Ibrahim maxaan wax ku dadaalaa waxay inay wax tayo lahaadaan ilka tayle dadka inaanu geliyo buuxin tayle inaanu buuxiyo daweyn qofku uu ka maha sheegto oo waxa weeyaan uu qofku maartay ku soo noqdo asal lagu xidhay kadib ilka cadaba dusha laga xidhaya waxaan hadda soo kordhinay waxa la yiraahdo veneers baan ku soo kordhinay magaalada waan hore uga jiri jirin veneers kaas oo ah baalan Hollywood smile ku xidhaane ilkaha lagu maartay dadkan filimada materialka aad ka wada xidha kuwaasaan soo kordhinay waxaanu kala soo kordhinaynaa insha Allah taala oo nadiif laga sameeynaya qof marka uu gashado si fiican afkiisa ugu jiraya aan wax ur ku keenahayn wax dhibaato ku keenahayn biocompatible oo afku waxa weeyaan la falgalaya taana insha Allah taala waan soo kordhinayna waan haynaa halkaas bulshada diyaar ugu nahay cid inoo imanaysan ugu adeegina insha Allah taala Soomaali Abdi Ahmed Karile Kalson TV Hargeysa